xalqadda afaraad waxay ku bilaabanaysaa kaajin wuxuu weydiiyey Sienna inay dhab ahaan u jeceshahay Minhag iyo in kale. Markaas ayay u sheegtay sirta weyn ee qalbigeeda ku jirtay, taas oo ahayd inaysan weligeed jeclaan karin nin qurux badan. Noloshii ay soo martay tan iyo carruurnimadii waxaa had iyo jeer dhib iyo silac ku hayay dad muuqaalkaas oo kale leh. Sidaas darteed waxay sheegtay inay ka dheragsan tahay kana daashay raga quruxda badan ee u eg kaajin oo kale. Markii uu hadalkaas maqlay, kaajin wuxuu dareemay wareer iyo amakaag. Habeendan markii uu fikiray, natiijadii u soo baxday waxay noqotay in saddexda walaalo ee Sienna ay yihiin kuwa mar walba dhibka ku haya. Taasina ay tahay sababta ay fikirkan u qaadatay. Sidaas darteed, kaajin wuxuu bedelay bartilmaameedkii aargudashada. Wuxuu go'aansaday inuu Sienna ka caawiyo sidii ay aargudasho u heli lahayd, taas oo ah inuu saddexdeeda walaalo ah ka abaalmariyo dhibkii ay u geysteen. Tallaabadii ugu horreysay ee uu kaajin qaaday markii uu dugsiga ku laabtay waxay ahayd inuu xafiiskiisa ugu yeero walaalkii ugu yaraa ee Sienna. Kaajin wuxuu bilaabay inuu su'aalo weydiiyo oo uu ku cadaadiyo sababta uu mar walba u dhibo Sienna. Walaalkii yaraa markii uu hadalkaas maqlay, maba uusan fahmin waxa uu kaajin ka hadlaayo. Wiilkaas yaraa markii horeba wuxuu ahaa mid fulay ah, haddana waxa uu sii dheeraa hanjabaadda kaajin. Sidaas darteed, cabsi darteed ayuu isku soo yaraaday. Kadib kaajin wuxuu mar kale aaday dukaankii baabuurta ee walaalka weyn ee Sienna. Markan kaajin wuxuu isticmaalay maqaamkiisa macmiilnimo si uu nolosha ugu xumeeyo walaalka weyn. Wuxuu sheegay inuu rabo inuu tijaabiyo baabuurka ugu qaalisan dukaanka. Kadib kaajin wuxuu walaalkii weynaa u soo saaray jidka, wuxuuna bilaabay inuu baabuurka ku kaxeeyo xawaare aad u sarreeya oo uu cagta saaro waddada. Walaalkii weynaa isna maba fahmi karin waxa uu dhab ahaan kaajin ka qaldan iyo sababta uu ula dhaqmayo sidan. Ugu dambayntii, kaajin wuxuu aaday baarkii uu lahaa walaalkii labaad ee Sienna. Laakiin intaysan hanjabaadda kaajin bilaaban, walaalkii labaad ayaa kaajin ugu digay inuusan marnaba u soo dhowaan walaashiisa mar dambe. Kaajin isagoo si quursi leh u fiirinaya ayuu yidhi in arrintani aysan isaga ugu baahnayn faragelin. Walaalkii labaad ayaa markaas mindi soo saaray, taas oo kaajin ku riday cabsi iyo naxdin xad dhaaf ah. Markii dambe, kaajin wuxuu walaalkii labaad ka ogaaday in Sienna aysan u nacbanayn ragga quruxda badan walaalaheeda darteed oo keliya, balse ay jiraan sababo kale oo qoto dheer. Isla waqtigaas, Sienna waxay heshay qirashadii jacayl ee saddexaad ee kaga timid kaajin. Markan waxay dareentay wax ka duwan xilliyadii hore. Markan waxay bilowday inay dareen kalgacal dib u dareento, laakiin had iyo jeer waxay islahayd kaajin malaha wuxuu rabaa inuu kugu maadsado oo uu qirashada jacaylka u isticmaalayo sidii kaftan oo kale. Si ay shakigeeda u xaqiijiso, waxay u tagtay saaxiibteedii ugu dhoweyd. Saaxiibteed ayaa u falanqaysay in xiriirkii dhex maray Hayuun iyo kaajin ee horey loo xusay uu ahaa mid uu Hayuun iskiis u maleegay oo been ah. Kaajin haba yaraatee waxba kama ogeyn xaaladaas. Marka lagu daro daryeelkii iyo welwelkii uu kaajin u muujiyey Sienna intay dugsiga joogeen, waxaa la xukumi karay in dareenkiisu uu ahaa mid dhab ah. Markii ay hadalkaas maqashay, Sienna way isdejin weyday. Meel kasta oo ay aado, waxaa sawirka kaajin iyo qirashadiisii jacayl ay ku soo wareegayeen maskaxdeeda. Maalmihii ku xigay, kaajin kama uusan soo muuqan dugsiga. Tani waxay Sienna ka dhigtay inay dareento raaxo darro iyo cidlo. Aad ayay u murugootay ilaa ay aaday baarkii walaalkeeda si ay cabitaan u soo cabto. Iyadoo sarqaansan, Sienna waxay wacday kaajin. Kadibna waxay bilowday inay ku hadasho erayo isku dhex qasan oo wareer ah. Markii uu walaalkeedii labaad arkay xaaladda, markiiba moobilkii ayuu gacanteeda ka dafay. Walaalkeeda wuxuu aad uga cabsaday in marka ay berito hurdada ka soo kacdo ay dareento xishood iyo ceeb weyn. Sidaas darteed, isagoo aad u tixgelinaya ayuu tirtiray diiwaankii wicitaanka. Sidii la filaayeyba, maalintii xigtay markii ay Sienna hurdada ka kacday, waxa ugu horreeyey ee ay samaysay waxay ahayd inay moobilkeeda baarto si ay u ogaato inay wax waali ah samaysay iyo in kale. Markii ay xaqiijisay inaysan jirin cid ay wacday, waxay istustay in wax kasta oo xalay dhacay ay ahaayeen riyo oo keliya. Iyadoo Sienna ay ka labalabaynayso inay iyadu marka keliya la xiriirto kaajin, ayuu si lama filaan ah gurigeeda horteeda uga soo muuqday. Markii ay aragtay in kaajin uusan ka harin inkasta oo ay marar badan soo diiday, Sienna si farxad leh ayay ugu oroday dhankiisii si ay baabuurka ugu kaxayso. Labadoodiiba waxay aadeen goobaha cuntada fudud ee jidka dhinaciisa lagu iibiyo. Markii ay aragtay kaajin oo cuntadii si macaan u cunaya, Sienna waxay u malaysay inay tahay markiisii ugu horreysay ee uu nolosha noocan ah uu dhadhamiyo. Laakiin kaajin wuxuu u sheegay inuu marar badan cuntooyinkan oo kale cuni jiray. Wuxuu u sheegay in markii ay iyadu diiday kadib uu go'aansaday inuu iscaateeyo, uuna naftiisa ka xarimay cuntooyinka qaar. Markii ay hadalkaas maqashay, Sienna xoogaa dareen dembi ah ayaa ku dhashay. Waxaa la gaaray maalintii ay kooxda ciyaaruhu isku diyaarinayeen inay u baxaan tartanka orodka iyo garoomada. Sienna ayaa ardaydii horkacaysay si ay u baxaan. Isla waqtigaas, kaajin ayaa baabuur ku yimid, wuxuuna go'aansaday inuu raaco baska ardayda. Laakiin maadaama uu qabo xanuunka cabsida basaska, jidka dhexdiisa ayuu bilaabay inuu kuma tago oo uu wareer dareemo. Nasiib wanaag, Sienna ayaa si farshaxanimo leh ugu duugtay neerfayaasha gacmaha si uu u soo kabsado. Kaajin aad ayuu u farxay daqiiqadaas. Wax yar kadib, waxay gaareen halkii ay u socdeen. Laakiin markii uu kaajin arkay gurigii yaraa ee duuga ahaa ee ardayda loogu talagalay, wuu u dulqaadan waayey. Markaasuu ardaydii ku amray inay baska dib ugu laabtaan, wuxuuna geeyey villa aad u raaxo badan oo qaali ah. Inkasta oo ay Sienna ku tiri waxaad tahay nin buunbuunin badan, haddana ficilkiisu wuxuu ahaa mid dhab ah oo naxariis ku dheehan tahay. Isla markiiba, Sienna waxay u oroday dhanka xeebta si ay biyaha ugu soo ciyaarto. Muddo yar gudaheed, dharkii oo dhan biyo ayay ku qoysay. Kaajin markuu arkay Sienna oo saas u faraxsan, aad ayuu u jeclaystay, haddana wuxuu ka cabsaday inay hergab ka qaado. Markaasuu si taxadar leh jaakadiisii ugu huwiyey. Xilligan, kaajin wuxuu
wuxuu xijisan waayey dareenkiisii jacayl si adag ayuu u qabtay iyadoo uusan dhinacna u jeesan karin kadib madaxiisa ayuu hoos u dhigay isagoo ku tiirsaday garabkeeda wuxuu keliya ku haminayay inay dhinaciisa joogto weligeed Sienna waxay halkaas istaagtay iyadoo aan dhaqdhaqaaqayn ilaa ay qolkeedii dib ugu laabatay dareenkeedii gudaha ayaa degi waayey markaasay go'aan geesinimo leh qaadatay waxay u tagtay kaajin waxayna u sheegtay wax kasta oo ay ka fikiraysay waxay weydiisay sababta ay mar walba isaga uga fikirto sababta ay mar walba isaga u daryeesho iyo sababta uu mar walba si lama filaan ah agteeda uga soo muuqdo xataa marka aysan rabin inay aragto kadib markii uu maqlay hadalladaas kaajin wuxuu yidhi haddiiba aadan rabin inaadan i arkin ha isoo fiirinin markaasuu gacantiisa ku daboolay indhaheeda ugu dambayntii kaajin si geesinimo leh ayuu Sienna si dhow ugu dhowaaday markaan Sienna ma aysan ka diidin markii ay qolkeedii ku laabatay Sienna waxay u muuqatay mid dawaqsan oo amakaagsan afka ayay gacanta saartay waxayna halkaas taagnayd muddo iyadoo fikiraysa laakiin muddo yar kadib qof kasta wuxuu u soo baxay in si wada jir ah cunto loo wada cuno labadoodu maba iska ilaalin karin inay is arkaan daqiiqadaas kaajin wuxuu ku jiray xaalad farxad iyo raynrayn leh laakiin Sienna waxay dareemaysay xishood iyo ceeb aad u weyn oo ay la gubanaysay xataa markii uu kaajin isku dayay inuu la hadlo Sienna si ula kac ah ayay mawduuca u beddeshay markii ay maqaayadii tageen kaajin ma fadhiisanin miiska hoostiisa cagtiisa ayaa mar walba taabanaysay cagta Sienna waxay iska dhigtay sidii inayna waxba dhacaynin laakiin kaajin ayaa markan ka sii daray oo noqday mid aad ugu dhiirada tani waxay Sienna ka dhigtay inay dareento cabsi iyo deganaansho la'aan jirka oo dhan ah sidaas darteed marmarsiyo ayay iska raadsatay waxayna ka kacday miiskii cuntada habeenkaas markii ay Sienna qolkeeda ku laabatay waxay fariin ka heshay kaajin markan Sienna waxay ka cabsatay in kaajin uu wax la yaab leh sameeyo si ay isu qariso waxay wejiga marisay maaskaro qurxin ah laakiin markan runtii kaajin wuxuu u yimid oo keliya inuu u keeno barkin raaxo leh maalintii labaad ee tartanka ciyaaraha waxay u dhacday si aad u xasiloon xataa mid ka mid ah ardaydii Sienna ayaa ku guulaystay kaalinta koowaad kooxdii oo dhan iyagoo faraxsan ayay gurigoodii dib ugu laabteen waxa ugu horreeyey ee ay Sienna samaysay markii ay guriga timid waxay ahayd inay raadiso saaxiibteedii ugu dhoweyd Sienna waxay weydiisay Miki sidee dareenku yahay marka la isku soo dhowaado maxaan anigu waxba u dareemi waayey Miki waxay u sheegtay in malaha farsamadoodu ay aad u liidato taasina ay tahay sababta ay Sienna waxba u dareemi weyday Miki waxay ku tiri war naga daa xishoodka ee isdhiiri waxay kula talisay inay u tagto kaajin oo ay mar kale isku dayaan habeenkaas Sienna waxay aaday guriga kaajin waxayna si toos ah u weydiisay inuu rabo inay mar kale isku dayaan iyo kale ka hor intaanu kaajin fahmin waxa dhacaya Sienna ayaa aad ugu dhowaatay kaajin ficilkan wuxuu kaajin ku noqday lama filaan iyo amakaag ma uusan filayn inay gabadhu heerkaas u dhiiran tahay laakiin kadib Sienna weli waxay u muuqatay mid aan waxba dareemayn markaasay codsatay inay mar kale ku celiyaan markan kaajin si xamaasad leh ayuu uga fal celiyey si geesinimo leh ayuu wejiga kor ugu qaaday Sienna wuuna u dhowaaday laakiin Sienna weli waxay u muuqatay mid aan dareen dhab ah ka helin tani waxay kaajin ku riday shaki weyn oo uu naftiisa ka shakiyey wuxuu bilaabay inuu cunto u cuno si aan xakamayn lahayn ma uusan danaynayn muuqaalkiisa iyo sumcaddiisa midna xataa markii ay cuntadii ku daadatay dharkiisa waxba kama soo qaadin qof leh xanuunka nadaafadda oo kale tani waxay u ahayd naxdin iyo musiibo weyn dhanka kale minhag ayaa jacayl u qirtay Sienna laakiin Sienna runtii haba yaraatee wax dareen ah uma hayn isaga taas beddelkeeda waxay mar walba ka fikiraysay kaajin tani waxay Sienna ka dhigtay inay xaqiiqsato inay si dhab ah u jeceshahay kaajin sidaas darteed Sienna ayaa qaaday tallaabada koowaad waxayna kaajin ku martiqaaday maalin dalxiis iyo sheeko ah maalintaas oo dhan ayay wada socdeen waxay wada raaceen mootooyinka lagu tartamo sawirro ayay iska qaadeen waxayna wada daawadeen filim jacayl ah sidii lamaanayaasha isjecel oo kale xilligan Sienna waxay xaqiijisay dareenkeeda dhabta ah waxay go'aansatay inay si rasmi ah ula midowdo markii uu guriga tegay kaajin aad ayuu u faraxsanaa ilaa uu sawirkooda dhigay sariirtiisa dhinaceeda isagoo dhoola caddaynaya ayuu seexday laakiin xaaladdu uma wanaagsanayn Sienna habeenkaas waxay ku riyootay riyo aad u naxdin badan sidaas darteed markii ay hooyadii kaajin u timid Sienna oo ay ka codsatay inay wiilkeeda iska dayso iyadoo aan labalabayn ayay markiiba ogolaatay sababta ay dabeecadda Sienna habeen keliya isugu beddeshay waxay ahayd inay xasuusatay shilkii galaaftay nolosha waalidkeeda shilkaas baabuur ee ay waalidkeed ku dhinteen habeenkaas waxay u dhaceen iyada darteeda maalintaas Sienna ayaa ku adkaysatay inay u tagto kaajin si ay raaligelin u siiso markaasay waalidkeeda jidka u soo jiiday laakiin jidka dhexdiisa waxay kula kulmeen darawal sarqaansan taas oo sababtay shilkii naxdinta lahaa aabaheeda wuxuu jirkiisa u isticmaalay gaashaanka si uu gabadhiisa u badbaadiyey Sienna waxay si dirqi ah kaga soo dhex baxday baabuurkii burburay laakiin ilbiriqsiyo kadib baabuurkii ay waalidkeeda ku jireen ayaa ka baxay kontaroolkii wuxuuna ku dhacay biyaha dhexdiisa maadaama aysan aqbali karin xaqiiqadaas qaraar Sienna xasuustii habeenkaas ayaa maskaxdeeda ka baxday waxay dareemaysay in dhibkaas oo dhan uu iyada dhibkeeda ahaa waxay istustay inay tahay qof nasiib darro u keenay dadkii ay jeclayd Sienna ma garanayn qaab ay mar dambe u wajahdo kaajin sidaas darteed markii ay hooyadii kaajin codsiga u timid iyadoo aan labalabayn ayay markiiba ogolaatay inay wiilka ka fogaato tani waxay ka yaabisay hooyadii kaajin oo jahwareer ku riday xataa weli ma aysan soo saarin baqshadii lacagta ahayd ee ay soo diyaarsatay haddana gabadhii markiiba way ogolaatay hooyadii waxay guriga ku laabatay iyadoo wejigeeda murugo ka muuqato markii ay ayeeyadii aragtay wejigeeda waxay u malaysay in arrintii ay fashilantay markii ay maqashay in Sienna ay isla markiiba ogolaatay kala taga ayeeyadii
labadii aad ayay u amakaagtay. Intaas kadib Sienna ayaa u tagtay Kaajin waxayna u soo jeedisay inay kala tagaan. Laakiin Kaajin oo xilligan ku jiray heerka ugu sarreeya ee jacaylka ma uusan aqbali karin hadalkaas. Markaasuu isku duubay isagoo iska dhigaya sidii qof yar oo naxariis iyo koolkoolin raba. Muuqaalkan waxaa aragtay hooyadiisa. Markaasay iska dhigtay qof markii ugu horeysay arkaysa Sienna waxayna u timid si ay u salaanto iyadoo faraxsan. Laakiin Kaajin wuxuu ahaa wiil caqli badan. Markiiba wuxuu dareemay in wax la maleegayo. Halkaas ayuu ka gartay sababta ay Sienna mar kaliya u go'aansatay inay ka harto. Waxa u soo baxday in hooyadiisa ay si dhuumasho ah faraha ula gashay noloshooda. Hooyadii si degdeg ah ayay u beenisay waxayna tiri weligay ma xaqirin asalka qoyska Sienna. Waxay tiri mar haddii ay isjecel yihiin oo ay faraxsan yihiin taas ayaa ku filan. Ma aysan rabin inay isku dhacaan wiilkeeda gabar darteed. Kaajin markuu maqlay hadalkaas wuxuu fursadda uga faa'iidaystay inuu weydiiyo ma ii ballan qaadaysaa inaadna taageerayso aniga iyo Sienna. Hooyadii ma haysan waddo kale waxayna ku qasbanaatay inay hadda iska dhaafto arrinta. Laakiin kadib hooyadii Kaajin waxay si qarsoodi ah ula kulantay Sienna waxayna ku tiri ha u goynin wiilka si degdeg ah oo naxdin leh. Si kastaba ha ahaatee Sienna waxay dareemaysay inay kala taga uu yahay tan ugu wanaagsan. Tani waxay hooyadii Kaajin ka dhigtay mid caawimaad la'aan dareenta. Waxay weydiisay Sienna maxay tahay waxa uu Kaajin dhiman yahay maxaad u rabtaa inaad uga tagto. Sienna waxay ugu jawaabtay inuusan Kaajin wax dhib ah lahayn. Laakiin farqiga weyn ee u dhexeeya qoysaskooda iyo xaaladda nolosha ayaa ah mid aan midoobi karin. Sienna waxay dareemaysay inaysan u qalmin Kaajin. Markii ay hadalkaas maqashay hooyadii Kaajin kuma raacin Sienna. Waxay u muuqatay inay ilowday ujeedadeedii hore ee ahayd inay kala fogayso. Waxay tiri arrinta ah in qoysasku isleeyihiin iyo in kale waa wax ay odayaashu ka fikiraan. Waxay sheegtay inay u aragto labadooda inay isku mid yihiin oo ay aad isugu habboon yihiin. Sidaas darteed waxay hadda u ogolaatay inay sii wada socdaan. Intaysan Sienna jawaab bixin hooyadii si degdeg ah ayay meeshii uga tagtay. Kaajin isna wuxuu si guud u fahmay sababta ay Sienna u doonaysay inay uga tagto. Wuxuu u tagay dhakhtar cilmi nafsiga ah si uu talo uga soo qaato. Wuxuu weydiiyey dhakhtarkii maxaan sameeyaa haddii saaxiibtay ay rabto inay xiriirkeena soo afjarto sababtoo ah waxaan ahay nin aad u qurux badan haddana maalqabeen ah. Hadalladaas waxay ka xanaajiyeen dhakhtarkii oo u arkay inuu isfaaninayo. Kadib markii uu istejiyey dhakhtarku wuxuu u sheegay Kaajin in muddadan ay ugu wanaagsan tahay inuusan arkin Sienna. Waa inuu siiyo waqti ay ku soo degto maskaxdeeduna ku degto. Dhakhtarku wuxuu Kaajin u sheegay hadal aad u culays badan. Haddii ay gabadhu dhab ahaan u go'aansatay inay xiriirka ku jirto waxba kama qaban kartid. Kaliya markay iyadu si qoto dheer u fikirto ayay heli kartaa jawaabta dhabta ah. Kaajin isna wuxuu raacay taladii dhakhtarka ee ahayd inuu ka fogaado gabadha. Markuu gurigiisii weynaa ku laabtay Kaajin wuxuu bilaabay inuu cunto u cuno si aan xuduud lahayn. Miiskii oo dhan waxaa buuxiyey cuntooyin iyo macmacaan. Xataa markuu musqusha galayo afka kama nasanayn oo wax buu haystay. Murugada jacaylka dhexdeeda xataa ma uusan dareemin in geeska afkiisa uu dilaacay hilib cunid dartiis. Isla waqtigaas Sienna waxay ku jirtay xanuunkii ugu darnaa. Markay soo xasuusatay in waalidkeeda ay u dhinteen iyada darteed waxay dareentay inaysan xaq u lahayn inay faraxdo mar dambe. Labadeedii walaalo ee waaweynaa waxay u dulqaadan waayeen inay arkaan walaashood oo saas u murugaysan. Mid ka mid ah walaalaheed ayaa ku yidhi walaal noloshu waa iska sidaas hore u soco oo weji cusub bilow waayo waalidkeen waxay rabeen inaad faraxdo. Walaalkii kale isna wuxuu u tegay Kaajin wuxuuna u sheegay xaqiiqadii dhabta ahayd ee dhacday maalintii ay waalidkooda ay dhinteen. Kaajin markuu runtaas ogaaday isna wuxuu galay xaalad kale oo eedayn nafsi ah. Wuxuu is yidhi walee waxaas oo dhan aniga ka dambeeyey. Isla xilligaas Sienna way soo ficnaatay waxayna u timid gurigiisa si ay ula hadasho. Ka hor intuusan isagu wax dhihin ayay Sienna si geesinimo leh ugu qiratay jacaylkeeda. Tani waxay Kaajin ka dhigtay mid xajisan waaya dareenkiisa. Markaasuu mar kale si dhow u dareemay Sienna. Laakiin markii uu haddana xoogaa fikiray wuxuu is yidhi weli adigaa dhibkaas oo dhan u sabab ahaa. Wuxuu dareemay inuusan weji uu ku fiiriyo mar dambe uusan lahayn. Gurigiisii ayuu gudaha u galay albaabkiina wuu soo xirtay. Sienna intay albaabka garaacday ayay daashay laakiin Kaajin wuu diiday inuu ka furo. Inkasta oo uu Kaajin saas u qaboobaa Sienna maadaama ay hadda hubtay dareenkeeda way ka quusan weyday. Maalmo badan ayay gurigiisa hortiisa joogtay iyadoo ku dadaalaysa inay wax walba hagaajiso. Dadaal dheer kadib labadii isjeclaa ayaa ugu dambayntii dib u midoobay. Hooyadii Kaajin iyaduna si hoose ayay u baartay Sienna waxayna ogaatay in gabadhani ay tahay qof akhlaaq iyo dabeecad dahab ah leh. Waxa kaliya ee ay ku liidatay waxay ahayd inay xoogaa cabsanayso oo aysan waxba iska hubin. Markaasay hooyadii iska daysay mucaaradnimadii. Xataa hooyadii ayaa u tagtay Sienna oo dhar qaali ah u soo iibisay. Sienna waxay sidoo kale taleefan ka heshay ayeeyadii Kaajin oo ku martiqaaday inay gurigooda soo booqato. Maadaama reerkii Kaajin ay wada aqbaleen Sienna waxay istustay inay tahay inay booqato. Si ay ugu muuqato gabadh dumar ah oo casri ah Sienna waxay bilowday inay ku tababarto socodka kabaha dhaadheer iyo xirashada dharka qaaliga ah. Iska ogaada gabadhu waa macallimad jimicsi oo nolosheeda oo dhan kabaha isboortiga ku dhex jirtay. Ugu dambayntii iyadoo isqurxisay ayay u tagtay qoyskii Kaajin. Ayeeyadii Kaajin aad bay ula dhacday qaabka ay Sienna cuntada u cunaysay maadaama ay ahayd gabar asluubsan. Kaajin isaguna isagoo suud xiran wuxuu mar walba fiirinayay kabihii Sienna. Wuxuu ka cabsanayay inay ku dhacdo kabaha dhaadheer. Wuxuu xataa hooyadii weydiiyey nambarka ay xirato. Markuu ogaaday in hooyadiisa iyo Sienna ay isku mid yihiin wuxuu ku yidhi hooyo kabaha Sienna ku bedel kuwaaga si ay ugu raaxaysato. Hooyadii iyo Sienna labaduba afka ayay gacanta saareen. Waxay dareemeen in Kaajin uusan hooyadiisa waxba u naxayn. Gabadha kaliya
uu ka fekerayo. Hooyadiisa xoogaa way xanaaqday, laakiin ayeeyadii oo meel agtooda ah fadhiday ayaa tidhi, iska sabir, aabihiisa saasuu ahaa markuu yaraa. Runtii qoyska oo dhan waxay ahaayeen dad jacaylka u dhashay. Inaad aadamaha ka mid tahay oo aad dulduleel leedahay maaha wax laga naxo. Waxa ugu muhiimsan waa inaad hesho qof og dulduleeladaada haddana ku doorta. Ha raadin qofka dunida ugu quruxda badan ama ugu dhammaystiran, ee raadi qofka adiga kugu habboon. Halkaas ayayna sheekadii Kaajin iyo Sienna ku dhammaatay iyagoo faraxsan. Labadii isjeclaa waxay sii wateen nolol macaan oo barwaaqo ah. Filinkuna halkan ayuu ku dhammaaday. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.